السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada sharafta mudan ee ku xidhan Channel Maal soo dhawaada. Waa xalqadii labaad ee taxanaha kun habeen iyo habeen. Haddii ay tahay markii koowaad ee aad channelkan soo booqanayso, fadlan subscribe ka taabo, like tana saar, gambaleelkana daaro si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeeda cusub. Anigana ay dhiirigelin igu noqoto. Iminkana daawasho wacan. boqor Shahriyaar markuu arkay waxa xaaskiisu ay sameynayso ayuu aqligiisii duulay. wuxuuna walaalkiisii ka yaraa ku yidhi, nabad walaalo meeshan aynu iskaga tagnay, waxba ugama baahnin boqortooyadan ilaa aynu ka soo arkayno in adduunkan ay ku nool yihiin dad inala mid ah amaba inaga liita. wuu ka oggolaaday, kadibna labadoodii si wada jir ah ayay u baxeen iyaga oo qasriga qaab qarsoodi ah uga baxay. waxay safar ku jiraanba markii ay daaleen ayay geed hoos fadhiisteen iyaga oo daalan. geedku waxa uu dhowaa bad meesha ku taalay. iyaga oo bartii ku nasanaya ayay baddii hal mar kacday. waxaana ka soo baxay wax aad moodo tiir weyn kaasoo cirkiis ku shareeray. markay arkeen ayay cabsi dareemeen. markaasay geedkii orod ku fuuleen, waxaanay sii fiirinayeen waxaan badda ka soo baxay waxa uu yahay. waxa ay arkeen waxaan badda ka soo baxay inuu ahaa shinni aad u weyn, aadna u dheer oo feedho waaweyn, wuxuuna madaxa ku xambaarsanaa sanduuq weyn. jinnigii sidii uu u soo socday waxa uu yimi geedkii ay labadii boqor saarnaayeen hoostiis. markaas ayuu geedka hoostiisii fadhiistay oo inta uu furay sanduuqii weynaa uu ka soo saaray sanduuq kale. sanduuqii kale ayuu sii furay, waxa uu ka soo saaray gabadhaad moodo xuuralcayntii jannada, quruxdeedana aad yaabayso sidii dayaxana u ifaysa. markaas ayuu jinnigii gabadhii ku yidhi, boqoraddii xorta ahaydey, waataan ku soo afduubtay habeenkii aqalgalkaagee, waxa aan rabaa hadda inaan xoogaa yar seexdo. markaas ayuu dhabteeda inta uu madaxa saaray ku seexday. gabadhii iyada oo meelaha fiirfiirinaysa ayay isheedu ku dhacday labadii boqor ee geedka saarnaa. markaasay madaxii jinniga dhabteeda ka qaaday oo dhulka dhigtay. kadib inta ay u soo jeesatay dhankii labadii boqor ayay u ishaartay inay soo degaan. waxay yidhaahdeen, jinka cifriidka ah ayaannu ka baqaynaa uma soo degayno. waxa ay ku tidhi, soo dega, haddii kale oo diidaan cifriidkan ayaan kicinaya. markay lafahoodii u baqeen ayay soo degeen. markay soo degeen ayay ku tidhi, labadiinna waxaan idinka rabaa inaad ila tumataan oo aad ila raaxaysataan. way ka diideen, hase yeeshee waxa ay ugu hanjabtay inay jinniga soo kicin doonto oo uu si xun u dili doono. markaas ayay sameeyeen waxay rabtay. markay hawshii dhammeeyeen ayay jeebkeeda ka soo saartay kolay yar oo ay ku jiraan in ka badan 570 faraati ama fargal. kadib labadii nin ayay weydiisay, ma garanaysaan waxa ay yihiin faraatiyadani? waxay dhaheen, maya, ma garanayno. markaas ayay ku tidhi, jinnigan aad u jeedaan wuxuu isoo afduubtay habeenkii aqalgalkayga, wuxuuna igu xidhay sanduuqan isaga oo ku sii xidhay 7 quful, wuxuuna igu riday badda gunteeda si uu iga ilaaliyo wax nin ah. sidaasoo ay tahayna waxaan la tuntay dhammaan nimankii faraatiyadan lahaa, ee idinkuna isiiya faraatiyadiinna. labadii boqor markay hadalkaas maqleen aad ayay u yaabeen, waxayna isku yidhaaheen, haddiiba cifriidkan weyni gabadhan uu sidaasoo dhan u ilaalinayay arrinkani ku dhacay, wixii innaga inagu dhacay waa salleelo. markaas ayay labadoodii oo yaabani degdeg meeshii uga soo tageen, waxayna ku soo laabteen boqortooyadii. boqor Shahriyaar oo aad u xanaaqsan ayaa yimi qasrigiisii. waxa uuna amar ku bixiyey in la soo qabto naagtiisii, jaariyadihii iyo addoomihii la tuntayba, waana la soo wada qabtay, halkaasana dhammaantood kurka laga wada gooyey. intaas kuma uu ekaanina boqor Shahriyaar wuxuu amar ku bixiyey in habeen kasta gabadh cusub oo bikir ah loo soo guuriyo, subaxiina kurka laga gooyo. wuxuu xaalku sidaa ahaadaba muddo 3 sano ah kadib waxaa la waayey wax gabadh ah, oo hablihiiba waxa ay noqdeen wax la dilay iyo wax cararay. wasiirkii u qaabilsanaa boqorka dhanka guurka maalintaas marka uu soo waayey wax gabadh ah oo uu u dhiso ayuu gurigiisii yimi isaga oo aad u murugaysan. wasiirkaasi waxa uu dhalay 2 gabdhood oo aad u qurux badan. taweyn waxaa la dhihi jiray Shahrazaad, tayarna Dunyazaad. gabadha weyn ee Shahrazaad waxay ahayd gabadh aqoon-yahanad ah oo wax badan ka taqaanay kutubta taariikhda iyo sheekooyinkii boqorradii hore iyo wararkii ummadihii hore. waxaana la sheegay in gabadhaas Shahrazaad ay baratay in ka badan 1000 kitaab oo ku saabsan taariikhihii iyo sheekooyinkii hore. Shahrazaad waxay ahayd gabadh aad u caqli badan, waxaana ay aragtay aabbaheed oo wejigiisu murugo ka muuqato. markaasay ku tidhi, aabba maxaa kugu dhacay oo aad sidan oo dhan ula murugaysan tahay? markaas ayuu wasiirkii gabadhiisii u sheegay siday wax u jiraan, wuxuuna ku yidhi, waxaa layga rabaa inaan caawa boqorka gabadh u soo dhiso. haddaan u soo dhisi waayana kurka ayaa layga goynayaa. Shahrazaad waxay aabbaheed ku tidhi, aabbow, aniga ii guuri, 2 mid uun bay noqonaysaa, in la dilo ama inaan madax furasho u noqdo gabdho badan oo muslimiin ah oo halaagsami lahaa. markaas ayuu wasiirkii yidhi, waan kuu baqayaa inantaydii naftaada halis ha gelin. waxay ku tidhi, waan ku qasbanahay middaas oo waa lagama maarmaane ii guuri aabbo.
odaygii wuxuu inantiisii ugu jawaabay waxaan kaaga cabsanayaa inay kugu dhacdo wixii ku dhacay dibigii iyo dameerkii uu ninka beeralayda ahaa iska lahaa. markaasay tidhi oo maxaa ku dhacay aabbow? wasiirkii wuxuu gabadhiisii ku yidhi ogow gabadhaydii inuu jiray nin beeraley ah oo xoolo dhaqato ahaan jiray, wuxuuna lahaa xaas iyo carruur. ninkaasi alle subxaanahu watacaala wuxuu ugu deeqay aqoonta luuqadaha xayawaanka iyo shimbiraha, laakiin haddii uu ka xog warramo inuu aqoontaa yaqaano wuu dhimanayay. ninkaas beeralayda ahi waxa uu lahaa dameer iyo dibi. dameerka shaqadiisu waxay ahayd inuu ninka qaado oo meesha uu doonayo uu ku aado, halka dibigana shaqadiisu ay ahayd in subaxii ilaa iyo galabtii beerta lagu falo. maalintii dambe dibigii ayaa u yimid dameerkii isagoo iska fadhiya oo caws iska cunaya, biyuhuna ay iska ag yaallaan. waxaanu ku yidhi niyow adiga way kuu dhacatay, anigu waan daalay oo tabcaan ayaan ahay sidii beerley igu falayay, laakiin adigu halkan ayaad cawska iska ruugaysaa, shaqo badanna ma qabatid. markaas ayuu dameerkii yidhi talanku siinaya ay dhegayso. berri marka lagu yimaado oo xadhigga iyo tiirka yaambada beerta lagugu falaayo lagugu xidho, iska fadhiiso, hana istaagin, xitaa hadday ku garaacaan oo aad kacdo mar kale dib u fadhiiso. markay kaa dareemaan tabardarri waxa ay kuu keenayaan bal iyo caws si aad xoog u yeelato ee ha cunin. cuntada iyo cabistana jooji ilaa iyo 2 maalmood, sidaas ayaana shaqada badan kaga nasan kartaa. ninkii beeralayda ahaa sheekadooda wuu maqlaayay wuuna la yaabay. subaxii ku xigay markii la gaadhay ayuu dibigii diiday inuu kaco, si kasta oo la isugu dayeyna wuu kici waayey. markaas ayuu ninkii beeralayda ahaa yidhi dameerka ha la wado oo beerta isaga ha lagu falo. markaasaa dameerkii inta la waday maalintii oo dhan beerta lagu falay. galabkii markii uu dameerkii moorada ku soo laabtay waxa uu dibigii uga mahad celiyey abaalkii uu u sameeyey iyo taladii uu siiyey, laakiin dameerkii uma uusan jawaabin isagoo si xun uga shaleeyey taladaa uu dibiga siiyey. maalintii labaad ninkii beeralayda ahaa waxa uu u yimid dameerkii, mar labaad ayaana beertii lagu soo falay. galabtii isagoo tacbaan ah markii uu ku soo laabtay xeradii waxaa mar kale u mahad celiyey dibigii, laakiin dameerkii ayaa markan ku yidhi dibigii war talaan kuu hayaa niyow. waxaan maanta maqlay ninka beeralayda ah oo shaqaalihiisa ku leh haddii berri dibiga uu kici waayo waxaad u geysaan kanwaanlaha si uu u qalo, sababtoo ah wax faa'iido ah oo lagu qabo maba laha mar haddaanu beerta falaynin. markuu dibigii hadalkaas maqlay ayuu haddana dameerkii u mahad celiyey, wuxuuna yidhi berri hawl baa ii taalla. ninkii beeralayda ahaana sheekadooda wuu maqlaayay. waagii markii uu bariyey dibigii waxa uu bilaabay inuu wax badan cuno isagoo oo shaqo isu diyaarinaya. subaxnimadii markii la gaadhayna ninkii beeralayda ahaa waxa uu arkay fagfagta dibiga ka muuqata iyo siduu shaqada diyaarka ugu yahay. markaasuu qosol la dhacay. naagtiisii oo meesha ka dhoweyd ayaa tidhi maxaad ku qoslaysaa? ninkii wuxuu yidhi haddaan kuu sheego waxaan ku qoslaayo waan dhimanayaa. waxay tidhi gabadhii ii sheeg xataa haddaad dhimanayso. markay ku adkaysatay ayuu ninkii dadkii isugu wacay si uu u dardaarmo. dadkii ayaa isku dayey inay naagta la hadlaan oo ka celiyaan, laakiin way diiday. waxaana tidhi waan ogahayoo ninkani aniga ayuu igu qoslayaaye ha ii sheego waxa uu ku qoslaayo, hadduu doono haba dhinteen. ninkii beeralayda ahay naagtiisa aad ayuu jeclaa, waxa uuna go'aansaday inuu sheego. gurigiisa ayuu qabtay si uu 2 ragcadood oo sunno ah u soo tukado. isaga oo guriga ku dhex jira ayuu maqlay eygii guriga joogay oo diigga la hadlaayo kuna leh diigow adigu halkanaad 50 digaagood iska dhex fadhidaa, saaxiibkeenna uu dhimanaya. markaasuu diiggii yidhi wallaahi saaxiibkeen haddii uu caqli leeyahay naagta uu iska edbin lahaa. anigu 50 digaagood ee ila jooga hadday midi iga xanaaqdo inta aan edbiyo ayaan kuwa kale dhexda ka galaa. waxaa fiicnaan lahayd in saaxiibkeenna naagtiisa edbiyo ilaa ay ka toobad keenayso. ninkii beeralayda ahaana hadalkaas wuu maqlaayay. kadib wuu soo baxay wuxuuna u yeedhay naagtiisii waxauna ku yidhi qolka soo gal, goonni ayaan rabaa inaan kugu sheegee. markii qolkii soo gashay ayuu si daran u garaacay ilaa ay ka qaylisay, qasabna ay ku toobad keentay. halkaas ayayna naagtii hadalkeedii kaga noqotay, dadkiina ku farxeen maadaama ay noloshiinii ku badbaaday. markaas ayuu wasiirkii gabadhiisii ku yidhi adigana sidii dameerkaas oo kale inay kugu dhacdo ayaan kaaga baqayaa, intaad is leedahay dad kale badbaadi. markay Shahrazaad maqashay sheekadaas ayay tidhi wixii dhacayaaba ha dhacaane aabba boqorka ii guuri, anigaa u diyaar ahay. sidii ayaa boqorkii gabadhii loogu guuriyey. waxayna gabadhii Shahrazaad ahayd la sii dardaarantay walaasheedii ka yarayd ee Dunyazaad iyada oo ku tidhi marka boqorka la ii geeyo waxaan kaa codsanayaa habeenkaas marka uu dantiisa iga boogto inaad wehel ii noqoto. haddii uu oggolaado waxaad igu tidhaahdaa abbaayoy maad nooga sheekaysid sheeko cajiib ah oo ka mid ah sheekooyinkaagii halaasiga ahaa, maadaama aad berri naga tegaysid oo lagu dilaayo. aniguna sheeko uu boqorku ka helo ayaan bilaabayaaye. kadibna gabadhii sidii ayaa lagu gelbiyey. markii boqorkii loo geeyey ayay gabadhii Shahrazaad ahayd oyday. markaasuu boqor Shahriyaad ku yidhi maxaad la ooyeysaa? waxa ay tidhi waxaa jirta gabadh walaashay ah oo iga yar, waxaanan rabaa inaan soo sogootiyo ee ii oggolow. markaasuu boqorkii u oggolaaday. kadib markii ay Dunyazaad timi ayay habsiisay iyada oo walaasheed sogootinaysa. markaasay Dunyazaad tidhi abbaayoy intaanan kaa tegin maad nooga sheekaysid sheekooyinkaagii halaasiga ahaa mid ka mid ah. Shahrazaad ayaa tidhi waan ka sheekaynayaa haddii uu boqorku ii oggolaado. markii uu boqor Shahriyaad hadalkeeda maqlay ayuu yidhi bal sheeg aan maqalne sheekooyinkaagaas mid ka mid ah.
halkaas ayuu ka bilaabmay habeenkii koowaad ee sheekooyinka kun habeen iyo habeen. xaqadeenna maanta halkaas ayaynu ku soo afmeeraynaa. intaynu xaqadanta ku xigta aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.